Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ku murmay god biyo ku jiraan hudhud iyo tuke. Mid waliba waxa uu ku andacooday in uu godka isagu leeyahay, wayna ismaan dhaafeen oo way awoodi waayeen in ay xalliyaan khilaafka dhexdooda. Muran dheer kadib waxay ku heshiiyeen in ay u tagaan xaakimka shimbiraha. Markaas ayay u tageen oo ay uga warrameen sheekadooda. dabadeed waxa uu weydiistay in ay caddayn iyo makhraati keenaan ku allaala kii marag hela ayaa godka iska leh oo qaadanaya ayuu ku yidhi. Way isfiiriyeen oo way iska aamuseen. Markii ay waxoogaa aamusnaayeen ayuu xaakimku ogaaday in labadooduba midna makhraati uusan u haynin midka kale. dabadeed xaakimkii ayaa in yar aamusay isla markaana go'aan qaatay oo hudhudkii u xukumay in uu godka leeyahay. hudhudkii oo yaaban ayaa ku yidhi, maxaad godka iigu xukumtay xaakim? xaakimkii ayaa ugu jawaabay oo ku yidhi, waxaa lagugu yaqaanaa runsheegnimo dadka dhexdiisa. oo waxaa la yidhi hudhudku weligiis been ma sheegin, saas ayaan godka adiga kuugu xukumay. hudhudkii intuu cabbaar aamusay ayuu ku yidhi, haddii arrinku yahay sidaad sheegtay, ilaah baan ku dhaartay. anigu ka mid ma ihi kuwa sifo ku caanbaxay ee haddana wax ka soo horjeeda sameeya. godkana waxaa iskale tukaha. hadday sumcaddu ii hadhayso, kun god oo aan qoto ayaa iiga roon. cashirka aan ka baranayno qisadan wuxuu noqonayaa in sumcaddaada wanaagsani ay tahay raasamaalkaaga ee inaad ilaashato. oo ha ku difaacdo inta aad nooshahay iyo marka aad dhimataba. intaas ayaan ku soo koobayaa maanta. haddii aad hayso qiso wanaagsan waxaad nagula wadaagtaa qaybta kommentiga. mar kale intaa kulmi doonno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.